السلام عليكم مقعي والدكتور عبد الرحمن oo ka howlgala cusbitaalka takhasusiga iyo tacliimiga ee Dalmar maanta kale wuxuu ku baagan tahay maalinta cagaarshowga adduunka cagaarshowga waa caawa ku dhaca beerka kaas oo sababo fayras oo loo kala qaybiyo A B C D E nooca ugu horeeya waxa loo yaqaan hepatitis A kaas oo badanaa ku dhaca caruurta da'da yar waxaana sababa nadaafad darrida ka hortagiisana waxa waaye nadaafadaas oo lagu dadaalo iyo talaalna waa leeyahay talaalka hadaa qaadatidna sidoo kale ka hortag ayuu leeyahay nooc kale waxa loo yaqaanaa waa nooc ugu daran waxa loo yaqaanaa B E C sidoo kale siidna asagana aad u daran yahay ayakana waxa lagu kala qaadaa B E C da bukaan qabo in siringo isticmaale aad isticmaashid sidoo kale hadda waxa wadankan ku soo batay daroogada oo xididada laga qaato qof haduu cirbadaas isticmaalo oo qabo adina isticmaasho cirbadaas daroogada sidoo kale waa lagu kala qaadaa sidoo kale hooyada cudurka qabto hadii cunugeena sidoo kale u gudbi kartaa saasna lagu kala qaadi karaa badanaa bukaanada hadana soo booqdo waxay u badan yihiin bukaanada dhalinyarada oo isticmaalo siringadaas sidoo kale bukaan cudurkii qabo aan baaritaan marin oo dhiig u shubayo qof kale sidaasna lagu kala qaadi karaa iyo waxa kale lagu kala qaadi karaa sidoo kale galmada nooca B koortigiisana waxa waaye talaal leeyahay nooca C gina asagana koortigiisana ina marka hore bukaanka ina baaritaan inuu maro waaye si loo hubiyo caafimaadkiisa inuu qabin in kale in laga fogaado cirbadahan qof soo isticmaalin anoo fursadan ka faa'iideysanayo bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa cusbitaalka Dalmar inuu diyaariyay baaritaano iyo daweyn la xiriira cudurkaas cagaarshowga ha sugin intuu calaamada ka soo muuqanayo fadlan ka hortag ayuu leeyahay daaweynta wax markasta ka wanaagsan ka hortaga fadlan na soo booqo iskana baar cagaarshowga Dalmar Specialty and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.